ay dalka Saudi Arabia oo taageero xoog leh u muujiyay oo isbahaysi dawladda Saudi Arabia oo fashilisay waxa ay ku sheegtay shirqool bartilmaameedkiisu ahaa in la qarxiyo masjidka weyn barakaysan ee Makka sida warqoraal ay ku sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee Sacuudigana 11 qof ayaa ku dhaawacmay kii waxa isqarxinta isku soo rakabayna waa ku dhintay meel u dhaweyd masjidka oo guri ahaa markii uu damcay inuu baxsado oo ay ciidamada amniga iska hor yimaadeen guriga BBC-da Grand Party ayaa ka warramaya waxaana soo jeedanay Axmed Cabdinuur sawirro laga soo saaray telefishinka Sacuudiga waxay muujiyeen burbur fara badan oo isdul saaran wadooyin dhuudhuuban ee dhinacyada dhisme deegaan ahaa oo gebi ahaantiisba burburay مسؤولين سعودي waxay sheegeen in dhismuhu dumay kadib markii qof doonayay inuu isqarxiyo ay rasaas isweydaarsadeen ciidamada ammaanka ka hor intii aanu ooda ka qaadin waxyaabo qarxa dadka halkaas wax ku noqday waxa ka mid ah 5 nin oo booliis ah wasaaradda arrimaha guduhu waxay sheegtay in maalinnimadii shalay toogasho lagu dilay hal qof qaar kaloo badanna la xiray duulaanno ay ciidamada ammaanku ku qaadeen meelo kale oo magaalada ka mid ah iyo magaalada Jidda muslimiin badan oo caalamka ka kala socda ayaa cimro u tagay magaalada Makka dhamaadka bisha Ramadaan ma jirto wax muujinaya cidda ka dambeysay shirqoolkan la sheegay taageerayaasha kooxda sheegata dawladda islaamka ayaa hore loogu maleynayay inay fuliyeen weeraro ka dhacay magaalada Madiina ee waddanka Sacuudiga isla waqtigan oo